tani markii dagaalka laba bilo jirsaday uu ka bilowday magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool ee u dhaxeeya jabhadda SNM iyo shacabka isdifaacaya si qaatumo waxa dagaalkaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac barakac qoysas reer Laascaano ah oo markaasi u dul qaadan waayay madaafiicda ay magaalada Laascaano ku garaacayaan ciidamada jabhadda SNM Kalabeer waxay ka tirsan tahay magaalooyinka qaabilay dadka markaasi ka soo barakacay colaadda Laascaano iyo sidoo kale dadka ku soo waxyeeloobay colaadaasi Kalabeer waxay Laascaano jirtaa ilaa 30 kiiloomitir iyadoo dhanka koonfureed ka xigta magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool halkani waa isbitaalka weyn ee Kalabeer General Hospital waxa uu martigeliyaa markaasi qoysas badan oo reer Laascaano ah oo markaasi ku soo barakacay iyo sidoo kale dhaawacyo ku soo waxyeeloobay dagaalka magaalada Laascaano ka socda haddaba waa taraamid kamid ah dhaqaatiirta ka howlgashay isbitaalka Kalabeer General Hospital oo markaasi ka waramaysa dadka ay ku hayaan isbitaalka ee markaasi ku soo dhaawacmay dagaalka iyo sidoo kale kuwa markaasi ka soo barakacay magaalada Laascaano bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxaan joognaa isbitaalka Kalabeer baan joognaa isbitaalka Kalabeer waxa yimaada dhaawacyada magaalada Laascaano dadka lagu laynayo ama duqeymaha lagu sameynayo ama ciida dadka dagaalamaya halgamayaasha dalkooda difaacaya ayaa halkan la keenaa degmada Kalabeer waxay kulmisay shacab badan oo soo qaxay marka loo eego Laascaano dadka soo qaxay laba meelood ayaa la Kalabeer yimaadeen maadaama magaalada u dhowdahay oo 30 kiiloomitir u jirta Laascaano ayay magaalada yani dhawaan dadka u badan ay yimid dadka maalintii dagaal ku qabsaday ayaa dhawaanshaha uga halkan u yimid magaalada dad aad fara badan baa jooga ilaa adugu dhowr iyo 10 kun oo qof baa lagu qiyaas karaa halkan isbitaalka weyn wuxuu daweeyaa dadka dhaawaca wuxuu daweeyaa dadka bukaan socodka ee shacabka soo qaxay laftigeeda alxamdulillah dar dhaawaca noo yaala waa leeyihiin caafimaad qabaan marka loo eego dadka adugu waxyaalaha nolol karna waxba naga soo gaargaara community waxyaalaha iska ururiyaan ayaa naga soo gaara dawooyinka oo kale qaybaha dawooyinka kala duwan dagaalka oo kale haduu sii dheeraado oo kale xilli uu noqon kara lama garanayo kale waxay u baahan yahay degmada Kalabeer ama dhakhtarkeedu wuxuu u baahan yahay caawimo iyo cid iska rabtaagta xagga dawada waxa jira dad aad u fara badan oo kaaga baahan quudin maalintii waxa laga yaabaa 3 waqti in la siiyo dad ilaa 250 qof oo isugu yimaada isbitaalka sababtoo dadku waxay ka wada yimaadeen deegaano kala duwan waxay kaaga baahan yihiin 3 waqti inaad siisid marka culayska inta leeg baa saaran laakiin alxamdulillah kulli sidii marba loo tacaalo waa la tacaala alxamdulillah waxa deer dhaawac culus ama jiraan dhaawacyada lafaha oo kale waa iska gudbinaa marka dhakhtarkan oo kale waxay ku fiican dhakhtarka lafaha oo kale inuu joogo sababtoo dhaawacii dadka lafaha ka jaban oo dhan waa gudbinaa gaar waan gudbinaa marka hadii dhakhtarka lafaha la heli lahaa gudbinta faraha badan way bii lahayd marka kulli adeer dhaawac noo joogaana waa caafimaad qaba alxamdulillah cid kasto garab istaagaysa waa soo dhaweynana dhaawacyada guud aan qaabilnay waxa weeye 400 weeye 400 250 kamid ah oo waxay hay'ad dad madaxa kaga taalo dad lafuhu jajaban yihiin dad u baahan keer dheeraada oo ilaa Muqdisho loo soo gudbiyay ayaan iska gudbinay marka halkan wixii la gudbinayo iyo wixii dhaawac culus Kalabeer soo mara wixii fududna waa dajinaa qaban karno wixii u baahan dhakhtar specialana garowa loo gudbiyaa ilaa Muqdisho dadka ku soo dhaawacma dagaalada ka socda magaalada Laascaano ayaa waxa markaasi la geeyay isbitaalada kala duwan oo ku yaala gobolada dalka oo markaasi ay ka mid tahay magaalada caasimadda ee Muqdisho Kalabeer waxay ka tirsan tahay magaalooyinka ugu weyn maadaama ay u jirto Laascaano 30 kiiloomitir dhanka koonfureedna ay ka xigto ayadoo markaasi la geeyo in badan oo kamid ah dhaawacyada ku soo waxyeelay magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool oo ka socda dagaalka u dhaxeeya ciidamada jabhadda SNM iyo markaasi shacabka isdifaacaya ee markaasi magacooda loo soo gaabiyay SSC qaatumo